bismillaahi raxmaani raxiim waxaan oo wanaagsan khiyaarta hawada iga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwadii ugu dambeeyay wadahadahan oo kale ka daawataan YouTube-kan barnaamijka intuu soconiyo haduu beeweyna idmo macluumaadka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhawaaqay doorasho dadban inuu dalku aadi doono mucaaradka oo sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka guuleysteen waa sida ay warka u dhigeen waa 2 bisha shanaad 2026 qodobkaas oo faahfaahsan intaan ku soo gudbin fadlan muuqaalka leeg saar oo share garay oo u geey cidooban aynu ku bilownay saaxiibayaal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ogeydeen ama dadka Soomaaliyeed intooda badan ba ay ogaayeen inuu ku dhaganaa doorasho qof iyo cod ah oo marar badan oo ka sheegay meelo maslaxiya oo waaweyn ayaa imika wuxuu u muuqdaa inuu gabi ahaanba ka tanasulay oo doorasho dadban la aadi doono teenadii halka iyo afasiyooni loo laaban doono waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal taasna waxa keentay baa leeyahay culeysyo badan oo madaxweynaha uga imaanayay odayaasha guurtida dhaqanka ee Soomaaliyeed taasoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si cad ugu sheegay in uu dalka ku burburinin isaga barihiisa oo loo laaban dhibaatadii uu dalku uu soo maray inta u dhimana aan qof iyo cod aan laga qaban karin dalka sidaas darteed inuu mucaaradku waxa ay doonayaan iyo ummadda Soomaaliyeed inay yeelaan muddo kororsanay makaynu soo suurtagal ahayn kadib shirkii odayada dhaqanka iyo madaxweyne Xasan Sheekh ay wada yeesheen waa kii markii hore ka biyadiiday oo sheegay doorasho qof iyo cod ayuu dalkan aadi doonaa kadib cadaadisyo badan oo uga yimid odayaasha dhaqanka iyo mucaaradka oo iyaguna ku goodiyay 15 May hadii la gaaro in iyagu dalka ay la wareegi doonaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna ay u aqoonsan doonaan waadin Soomaaliyeed oo la mid ah madaxweynayaashii hore sida Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynayaashii kale ee dalka soo maray waa sida warka loo dhigay iyo cadaadiska beesha caalamka oo isaguna noqonaya mid imika ay soo taraya taasi kadib markii ay dhacday madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu noqday mid waxa soo dhanba imika ka tanasulay laakiin waxay dawladdu ay sheegtay in maamul goboleedyada doorasho qof iyo cod ah laga soo qaban doono intaan la gaarin 15 May oo muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku eeg yahay saaxiibayaal inta aan la gaarin in halkaasi laga soo qaban doono taasoo ay u muuqato madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu doonayo inuu taariikh dalkan uga tago oo burburkii kadib oo isagu taariikhdu ay qoranto inuu doorasho qof iyo cod ah oo gaarsiiyay dalka ummadda Soomaaliyeed waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal mucaaradka ayaa waxa laga yaabaa iyaguna cadaadiskii tirada badnaa inay ay halkaasi ku dajiyaan sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sheegay in shir guud la qaban doono oo ka soo qayb gali doonaan mucaaradka sida uu sheegay si habsami leh oo furfuran oo isdhexgal ah oo Soomaalinimada halkaasi shirka loogu qaban doono dalkuna inuu doorasho oo dadban uu aadi doono ayuu sheegay maadaama isaga meelo badan looga dhigay oo uu noqday loo kiisigii ruwayaasha badan iyo haadu ay ku goobteen uu noqday ayuu wuxuu sheegay inuu aqbalay imika taas oo iyagana dhanka dawladda markii loo fiiriyo guul weyn u ah dhanka kale mucaaradkana guul weyn iyagana u ah oo ah in dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay dhulka ay lugaha ugu dhufteen waa sida warka loo dhigay waxyaalaha badan oo soo taray ayaa jira maadaama dawladdu amaanka magaalada Muqdisho hareeraheeda 15 May ka hor baa leey si weyn ayuu adkeysay oo magaalada meelaha laga soo galo ciidamo adag ayaa la dhigay oo markaad baawur raacdo ku weydiinaya xageed u socotaa iyo xageed ka timid sidoo kale waxa oo dawladdu isku daday inay meelaha ay ka asaasi karaan badbaada laba iyo meelo la mid ah in ay ka soo xirxirto ayay isku daday laakiin waxa la sheegay cadaadis kasta oo dawladdu ay sameeydo inuu noqonayo mid uga sii dari kara dalka oo qalalaasho gelin kara ayaa la sheegay bal saaxiibayaal waxyaalihi dambe ka soo cusbanaad muuqaalada kale ayaan ku daawan doontaan fadlan muuqaalka leega saar oo share garew geeyo doobaan